saaxiibayaal waa idin salaanay maantay waxaan safar doona u soo aadnay aan ka soo baxnay magaalada Boosaaso aniga iyo asxaabteyda waxaan ku sii jeednaa magaalooyin kala duwan sida Qandala قصص قلبها يا لوكا أنا حاسس لي أنا بهامس بدك ميري أنت عادل هاي يا عمال دبس أوكي نشوف هذا waxaan ugu heliyay asxaab badan oo ka mid yahay safiirkeena ambassador Maxamed Cali Nuur America ambassador ka war safarkaas والله ما شاء الله سعيد وسفر aad ugu badan waaye waliba aan ku marayno xeebaha wadankeena Puntland meelaha soo maray ilaa dadkan waa meelo aan la sheegi karin mataqaanaa aad ugu badan xeebo nadiif ah white sands waa meelaha lagu bixin jiray lacagta weyn oo mataqaanaa marka la aado safarada adduunka traveling-ka marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo aadno safarkan oo aan u kala barnin waa gartay magaalooyinka noo dhiman hadda aan ku sii socono waxaa ka mid ah Qandala maxaa is leedahay Qandala nooga horeeya Qandala waxay caan ku tahay waagii hore waxay caan jirtay meesha lagu sameeyo kalluunka lagu gasaceeyo marka waan ku faraxsanahay inaan tagi doono waan soo booqan doono marka waa aad baan u faraxsanahay aan weligood dhulkaan arkin oo kale anigoo kale hadda is my first time aan dhulkaan imaado mana filin wax saan qurux badan arki doono macnaha dadkan dhulkaan weli aan soo marin oo kale maxaa kula dardaarmaysaa runtii horta anaga waxaa haysanaa waddan aad u weyn iyo dad yar ana waxaa aaminsanahay gobolkan hadda aan dhex marayno bari oo kale ama gobolka ka mid ah gobollada Soomaaliya inuu ka badan yahay 12 milyan oo Soomaalida marka kolley maadaama maaragtay xeebaha Puntland ay ka mid yihiin xeebo nabadana yihiin waxaan dhihi lahaa gobollada nabadda ah qofkii awoodo oo fursaddii iyo resource-ka haysta inuu tago oo ku soo dalxiiso